madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa baryahan ku sugnaa magaalada Garbaharey oo ah xarunta gobolka Gado taas oo kulamo kula qaadanayay siyaasiyiinta waxgaradka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMSOM safarka Garbaharey kadib ayaa waxaa lagu waday in sidoo kale uu gaaro magaalada Baardheere ee gobolka Gado waxaana safarkii uu ku tagi lahaa ka hor imaaday qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Baardheere iyo sidoo kale xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan Jubbaland kuwaas oo sheegay in aysan ku qanacsanayn maamulkooda salaadiin cuqaal iyo waxgarad ka mid ah dadka degmada Baardheere ayaa maanta kulan yeeshay waxayna ku taageereen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland waxayna sheegeen Baardheere in ay ka mid tahay Jubbaland madaxda Jubbaland aan laga hor istaagi karin salaadiinta ayaa bulshada ugu baaqay in laga shaqeeyo nabadgelyada gobolka wixii dhaliil ah oo maamulka loo hayana lagula xisaabtamo isla markaana aan dhanka kale loo bedelin oo xasarad iyo siyaasada aan lagu kicin maamulka ayagoo sheegay in muhiim ay tahay in la isla xisaabtamo waxaa marka qalad ah oo aan meesha ku jirin dadka deegaanka reer Baardheere waa dad la yaqaano nabadda jecel soo dhaweynta ku wanaagsan ayadoo marka qariiradii Jubbaland ku taalo oo Jubbalandna wax ka dhistay in la yiraahdo madaxdii Jubbaland Baardheere ma imaan karto ayadana waxa weeyaan taas mid meesha ku jirta ma aha waxaan rabnaa in aan u cadeyno madaxda Jubbaland iyo madaxda kale ee Soomaaliya oo federaalka ahba Jubbaland inay Baardheere inay tahay meel la imaan karo cid timaadana lagu soo dhaweynayo ayna soo dhaweynayaan dadka degan ay ku soo dhaweynayaan taas inaan cadeynaan rabnaa waxaan rabnaa hadalkii xildhibaanada in uu ahaa mid ayaga u gaara hadda waxa gobolka Gado ku sugan madaxweyne ku-xigeenka koowaad Jubbaland Maxamuud Sayid waxaan rabnaa inaan u cadeyno in lagu soo dhaweynayo Baardheere ay magaaladiisi tahay Jubbaland tahay uu imaan karo uu soo dhaweynayo waxaan rabnaa marka inaan fariin u dirno in reer Baardheere ay su'aalo badan qabaan wax badan oo su'aalaha inay qabaan waxyaabaha su'aalaha ay qabaanna waxaan rajaynaynaa madaxweynaha ku-xigeenka iyo waftiga ka socda Jubbaland inay ka qancin doonaan dadka Baardheere jooga in Baardheere ay tahay degmo ka tirsan 16 degmo ee ka kooban tahay maamul goboleedka Jubbaland hadda shaqooyin baa ka jira arrimaha ka jiro aan doonayno in madaxda Jubbaland ay tagto arrimahaas ay dhex gasho hal nabadeed ay ka gaarto ayadoo xitaa laga baqayo ayaan dhaxway xitaa in mar uu micnaha dagaal ka dhaco ilaahay baa mahad hadeer way degan tahay balse waxa la rabaa in Jubbaland ay tagto maamulkaas ay hagaajiso ay dhisto cid kasta oo tagtana waa lagu soo dhaweynayaa haday Jubbaland tahay haday ay federaalka tahayba cid kasta oo tagto oo madaxa waa lagu soo dhaweynayaa shacabana lagu soo dhaweynayaa Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo